السلام عليكم walaalahayga qaaliga ee kusoo dhaaba channelkayga with another video haddii ay igu cusub tahay walaal qaali magacaygu waa Taliso channelka iga daawanaysana waa Taliso Cabdulaahi maantana waxayaan ila sheegareynayaa jabati aad iyo aad u fudud haddii uu jabatigu ku dhibo ama uu jileec ku noqon ama gaduud uu ku noqonayno kalar dahabi fiican uu ku noqon ka faa'iideysi waan ayaan ku leeyahay waxayaan sameynaa oo kala digirta oo lagu cuni lahaay halkaan sida arkaysan waxayaan ku haystaa 1 kiilo oo bur ah waxayaan ku soo darsanayaa 2 qaando oo sokor ah waxayaan qiyaasta adiga ay ku xiranta aan 1 kiilo ayaan sameynaa qiyaastayda maanta aan ku soo darsanayaa wax yar cusbo ah inta kadib waxayaan ku soo darsanayaa wax yar oo saliid ah biyaha aan ku qasi doonana waa kuwana biyo aad iyo aad u kulul waaye biyaha zaid ay u kulul yihiin biyaha kulul jileecay kaga dhigaa jabatiga hadii aad ku qasto oo arkaysan sida ay u qaacayaan oo kada gacanta ma gali karo waxaan isticmaalo isku qasayaa because aad ay u kulul yihiin biyaha marka iska ilaalin gacanta horaha ka galin dan waa kan hada biyaha ayaan ku soo shubayaa kulli waxaan inta yacni aan ka helo sidaan ka rabay kadibna gacanta ayaan galiyay si fiican ayaa isku qasayaa burkaaga waa inuu ahaado jileec adeeg zaid ha ka dhigin dushiisa ayaan si fiican ugu soo rifaaqayaa haddii aan jabatiga si fiican u xashina ma aadan u rifaaqin jabati fiican ma ka dubaysid jileecna ma ku noqonayo so make sure inaa si fiican u qasto oo si fiican u rifaaqdo hada waa kana diyaar waa jileecna waa si fiican uu isku dhex galay just mara ayaan ku daboolayaa dan wax yar ayaa u kaadinaa 10 minute camal dan hada waa kana markale ayaa isku celiyay kadibna waan jajarayaa kuukuus ayaan ka soo dhigayaa soo marka hada sa arkaysan kulli markii aan sidaas soo jajaray hada waan fidinayaa soo dan hada sida arkaysan waan fidinayaa kadib waxaan sameynayaa markaan fisan u fidiyo waxaan ku soo shubanaa wax yar oo saliid iyo bur ayaan marinayaa kadibna sidaas ayaan u duubayaa maasha Allah tabaaraka Allah waa aad ay u fudud yahay qaabkan hada u sameysin aad ayaad uga heli doontaa dan waa kana hada xabada kale ayaan tusaaya soo xabada labaad ayaan tusaaya isla sidii ayaan sameynayaa saliid yar ayaan mariyay kadibna bur ayaan dusha ugu soo shubay kadibna sidaas ayaan waxaan sameynayaa u duubayaa soo marka waa kana isla sidii ayaan u duubay marka maasha Allah tabaaraka Allah dan sidaas ayaan ku soo dhameynayaa hada waa kana kulli waan soo dhameeyay hadana waxaan sameynaynaa waa dubaynaa jabatigayni sidaas ayaana u fidinayaa xabadan ayaan fidinayaa ni tusaaya dan hada waxaan soo qaata birtaawa aan dibka soo saaray kadibna jabatiga ayaan soo saarayaa maasha Allah tabaaraka Allah hada waa kana dhinaca kale ayaa u gedinayaa soo markaysan hada wali saliid iyo waxba kuma ana shubin hadii aad sidaa u sameeytid saliid adiga oo ku shubinaya isticmaali kartaa jabatiga ana cuni kartaa jileeciisana aad ayuu jilicsan yahay soo already hada waa arkaysan kalarka oo soo noqday waxaan still saliid kuma ana shubin soo marka hada ayaan ku shubo wax yar saliid zaid ayuu dahabi u soo noqonayaa adinkaaba ishiina ku arki doontaan jabatiga qasida hada uga dheeshid jabati fiican ma ku noqonayo dabkana medium iskaga gey zaid ha ugu dheereen zaidna ha u gaabin kalar qurux badan ayuu ku noqonayaa jabatigaaga hada ma arkaysan ma hoos sida uu soo noqday saliid marka aan ku shubay kalarkaas ayuu soo noqday maasha Allah tabaaraka Allah dhinaca kale hadana wax yar saliid ayaan ku shubayaa dan waa kana asigana dhinaca kalena waa kana isla sida ayuu asigana soo noqday arkaysan ma hadana waan ka saarayaa soo marka hada xabada kale ayaan tusayaa maasha Allah mid walbana mid ka dambeeyo uu ka sii qurux badnaanaya soo marka inaad yacni waqti aad siiso oo just waqti yar xataa iska dhigto aad ilaa 20 minute amal aad siiso way fiican tahay marka si fiican ay isku sii ka dhexgalaya jabatigaaga hadii aad sidaas aad sameyso soo marka hada waa kana walaalahayga qaaliga sidaas ayaan ku soo dhameynaa jabatiga marka jabatiga hada waa kana sidaan ayaan ku soo dhameynayaa kadibna waxaan sameysan doonaa digirti ayaan sameysan doonaa digirta already way ii karsan tahay freezer ayay igu jirtaa waan kariyay soo marka hal mar ayaan kariyaa wax badan kadibna freezer waan kala xiranayaa freezer ayaan gashtaa soo maalinta aan rabo hal xab ayaan soo baxsanayaa kadibna waan sameystaa marka hadana waa kana ila arka sida uu sameysto digirti oo plain oo waxba ku darnayn ayaa dabka ii saaran marka uu ka dhaca kadib waxa uu ku soo darsaday yaanyo ayaan ku darsanayaa
waxaa kaloo halkan ku haystaa basal iyo barbarooniga cagaarka iyo midka gaduudka oo ayaan soo jarjaray waan ku soo daray maasha Allah tabaarakallah kadibna si fiican ayaan isku dhex gelinayaa intaan dan waxaan sameynaa ku soo dari doonaa hal mar ayaan wax dhan ku daray uma baahnin inaa shiishid waa isku soo bislaanaya wax dhan si fiican waxaan ku darsanayaa wax yar saliid waxaan ku soo darsanayaa xawaajiyaal ayaan ku soo darsanayaa waa paprika iyo filfisha oo mid cadaanka iyo garam masala intaas ayaan ku soo darsaday kadibna wax yar ayaan ku walaaqayaa xawaajiyaasha waxa doonto oo waxa haysata ayaa ku darsan kartaa si fiican ayaa isku dhex gelinayaa kaloo ku darsanayaa wax yar oo cusbo ayaan ku darayaa soo marka spinach ayaan ku dari doonaa gadaal laakiin ayaan uga soo dari doonaa baby spinachka ayaan ku dari doonaa dan daboolka ayaan iska saaraya waxaan u sugaa ilaa uu iga soo bislaado si fiican isugu kay dhexgal hadda waa kana walaalahayga qaaliga si fiican ayuu isku soo dhexgalay hadana waa kana waan isku walaaqayaa si fiican ayaan isku dhexgelinayaa waxaan ku soo darsanayaa baby spinach ayaan ku soo darsanayaa maasha Allah tabaarakallah caafimaad badan ayuu leeyahay spinachka soo marka waa kana intaas ayaan ku soo darsaday kadibna wax yar ayaan u sugaa baby spinachka inuu karis badan ma u baahno just waqti yar ayuu ku karayaa soo marka hadda waa kana waa diyaar waa arkaysaan mo sidaas ayuu diyaar ku yahay dan hadda waa kana halkan ayaan ku soo diyaarsanaynaa maasha Allah tabaarakallah digirtana sidaas quruxda badan ayay ku soo baxday chapatiga adiga waxa jeceshahay ku cuni kartaa laakiin hadda digirtan ayaan u sameysanahay ama maharagwada aan dhahno maasha Allah tabaarakallah aad ayay noogu macaan badan tahay chapatiga hadda waa kana walaalahayga qaaliga maantana waa kana chapatigana sidaan ayuu ku soo baxay aad arkaysaan digirta iyo chapatigana jileeciisa lagama sheekan karo zaid ayuu jilicsan yahay waa arkaysaan mo sida uu iskugu duubsanaayo soo marka maasha Allah tabaarakallah ka faa'iideysi waxaan ayaan leeyahay mahadsantiin dhamaantiina sida quruxda badan oo adigu xirantiin mar walba igu soo dirtaan fariimihiina quruxda badan jazaakumullahu khayran ayaan leeyahay iyo fiidiyoga maanta ku cajab galay ay noo like garay lana sii sheegay walaalaha kale si dad badan fiidiyoga u gaaro fikradood qabtidna qaybta commentiga inoo reeb waxyaabaha jeclaan lahayd inay soo galiyana waa ila soo wadaagi kartaan qaybta commentiga igula soo wadaaga waan idin soo gelinaa insha Allah kana fiidiyowgeeni intaan ayuu ku egyahay intaan fiidiyow kale oo la kulmi doono waxaan rajaynayaa farxad iyo caafimaad dhamaantiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh